السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaashiin Haruun iyo mar kaleeto please kanaalkayga hadaa ka heshay subscribe commentiga dhiirigelinta waa xaggaaga maanta maxaan ka hadlaynaa maanta waxaa laga hadlayaa caruurta la caayo dadka hooyooyinka caruurta ceeyaano oo maanta dhan la ceynaayo oo la leeyahay geedii xuna fildarada badan geedii oo ilkaha dheer leh geedii oo lugaha dheer leh geedii adiga waxaan soo koobi karin oo cunugii la bahdilaayo aniga had koor qisaan dhageystay qisada marka hooyo waaye caruur badan ay dhashay caruurtii kulli way ceyneen nacala kugu taalo eeyo iga dhalay baaq 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 caruurtii way soo weynaadeen marka waxay iskugu dhex jiraan caruur yar yar caruur dhexdhexaad ah caruur xoogaa 16 15 ilaa 19 caruurtii miiga aqbalaysiin 13 sano wixii ka weyn dhan waxaa laga helay cudur la dhaho dabarees yaa ku riday hooyadooda ku riday marna way dilee marna way ceyne waxay leedahay cunug walbaba iine u yeeshay cunug walba wuxuu isir waxaa lagugu ceynayo waa tahay waxaa tahay waaye ilmihii waxbarashadii gabeen sariirtii koreen alcamuum adiga aabihii uu la noolaay laakiin badanaa ilmaha hooyaday ka sheeganayeen waa la dili jiray marka xaquuqda caruurta kuma jirto in ciyaalka la caayo ilmaha in la bahdilo maskaxdooda way yartahay maskaxdooda way koraysaa waxaa lagu koriyaa kalgacayl iyo ammaan iyo adiga boqor ah in la dhaho laakiin inaa la caayo oo cunugii la bahdilo oo wuxuu yahay iyo wuxuu ahayn laga dhigo waxaaba ugu sii daranba ilmaha kan ugu fool xun because hooyo ma wada dhalaysa ilmo wada qurxan mida uun aan yeelanayo kan inta leh waxaa laga dhaadhacsiinayaa inuu qafba ahayninba waxbaba inuu ahayninba qof ewerkiis inuu yahay inuu fool xun yahay inuu ilka dhaadheer yahay inuu dalba leeyahay inuu goobo leeyahay inuu isha la yahay wax walba waa laga dhaadhacsiinaa hadda hooyoy haddaa cunugii adiga guriga sidaas ku samaysid banaankii muxuu kala kulmayaa iskoolkii markii la geeyay muxuu kala kulmayaa dadka shacabka dhexdooda muxuu kala kulmayaa isla sidii oo kale cunugii marka 13 sano markuu dhaafo ilaa intuu yaray maskaxdii isla sheekeysan jiray 13 sano markuu dhaafo waxbarashada ku adkaanayso wuxuu noqonayaa cunug aan hor u socod lahaynin wuxuu rabaa guriga inuu sariirta saarnaado marka hooyooyin badan hadda saas lagu arkay oo Yurubna ku nool oo ilmahoodii kulli dabareys laga helay hooyoy cunugaaga xanuun ha u soo jiidin cunugaaga mustaqbalka sidoo cunug faciisa la jaan qaado ku noqon lahay ka shaqeey hooyoy haddii iskuulka lagu caayo garab taagnaaw haddii maxay ahaayeen adiga ha u ogolaanin in qof ceeyo inuu cunugaaga qof bahdilo ha u ogolaanin